kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta iyo goob kasta aad joogtaan soo dhawaada mar kale iyo muuqaal kale halkan waa daacad midiya haddii aad nagu cusub tahay subscribe dhe si aad uga mid noqoto asxaabta nala joogta isla markaana aad uga faa'iidaysto barnaamijyada dambe iyo muuqaalada dambe caawa wuu ka duwan yahay muuqaalkeenu muuqaaladii hore caawa waxaanu bixinaynaa jawaabaha su-aalihii hore soo weydiina dhalinyaradii kala duwanaa asxaabta dhalinyarada kala duwan ayaa soo codsaday inaan jawaabaha soo bixiyo badanaa waxaan filayaa ma soo sheego jawaabaha oo waxaan isku dayaa in dadku gartaan isla markaana halkaa ka dareemaan marka caawa waxaan isku daynaa inaan ka faa'iidaysano isla markaana halkaa ka sheegno jawaabaha waxaanu kusoo qaadanaynaa kuwii xalay kuwii u dambeeyey habeen hore duubin aan idhaahde muuqaalkii u dambeeyey iyo kuwii kale ka dambeeyey su-aalihii hore waxaanu soo eegi doonaa haddii la yidhahdo su-aalaha iyo jawaabaha isla socod wanaagsan su-aasha koowaad waxay noqonaysaa waxaad sheegtaa waxaan soconayn ilaa madaxa laga garaaco waxaad sheegtaa waxaan soconayn ilaa madaxa laga garaaco jawaabteedu waxay noqonaysaa musbaarka oo musbaarku ilaa oo madaxa laga garaaco mooye ma dhaqaaqo dadka qaarkood si kale ayay u qaadanayeen su-aasha labaad aynu soo qaadanayna iyada waxay noqonaysaa waxaad sheegtaa wax afar farood iyo suul leh balse aanan noolayn waxaad sheegtaa wax afar farood iyo suul leh balse aanan noolayn jawaabtu waxay noqonaysaa galoofiska oo galoofisku waxa uu leeyahay afar farood iyo suul balse naf ma laha su-aasha saddexaad aynu soo qaadanayno ayadna waxay noqonaysaa waxaad sheegtaa wax lagaa qaadayo intaan lagu siin ka hor wax lagaa qaadayo intaan lagu siin ka hor su-aashan waa su-aashii u dambeysay aynu dhalinyarada weydiinaynay qaarkood waxay lahaayeen waa nafta ma aha dhanka ka eegayeenna ma aha waa sawirka marka lagaa qaado unbaa lagu siinayaa marka waxa weeyaan wax lagaa qaadayo intaan lagu siin waa sawirka marka lagaa qaado unbaa lagu siinayaa saas weeyaan jawaabteeduna waa sawirka aan idhaahda su-aasha xigta ayadna waxay noqonaysaa waxaad sheegtaa wax shaqada kaa soo wadaayo ilaa guriga aad kasoo gaadhid waxaad sheegtaa wax shaqada kaa soo wadaayo ilaa aad guriga kasoo gaadhid jawaabteedu waxay noqonaysaa waddada oo ama jidka qofka sida uu yaqaano oo waddada marka aad soo gaadho yani waxay kaasoo kaxaynaysaa shaqadii waxayna ku keenaysaa gurigaagii oo way kusoo kaxaynaysaa yani way kusoo hagaysaa oo haddii ayna wadda jirin ma jirteen meel la maro su-aasha xigta iyadna waxay noqonaysaa daaqadda goormaad furtaa su-aashii ugu ximaasanta badnayd ugu qosolka badnayd waxay ahayd tan qofkii ugu qosolka badnaa dhalinyarta kamid ahaa waxa uu yidhi jawaabtii wuxuu siiyey wuxuu yidhi markaan suuliga galayan baan daaqadda furaa su-aashii aadka ugu qosolka badnayd tan ahayd mid kalena wuxuu dhahay markaan guriga hagaajinayo baan daaqadda furaa marka lama furaba si aan u iftiinsado yacni runaantii su-aashan aad bay u xamaasad badnayd dhanku dadka ka eegayeen ma ahayn dhan kale ay ahayd jawaabteedu waxay ahayd daaqadda waxaa la furaa markay xiran tahay oo waqti kale lama furo lamana isticmaalo su-aasha xigta ayadna waxa weeyaan iyo jawaabteeda sheeg shay haddii si kasta uu roob ugu do-o ama uu biyo loogu shubo aana qoyin su-aasha xigta iyada waxa weeyaan sheeg shay si kasta haddii biyo loogu shubo ama roob ugu do-o aana qoyelin si kasta haddii biyo loogu shubo ama roob ku do-o ma qoyayo jawaabteedu waxay noqonaysaa waa saanta diinka haddii aad si kasta biyo ugu shubto adin baa ku daali ma qoyayso weligeedba jawaabteeduna taas waa saas weli waxaan bartan kaga jirnaa su-aalihii iyo jawaabihii haddii aad nagu cusubtahay nagu soo biir si aad uga mid noqoto asxaabta nala joogta isla markaana uga faa'iidaysto barnaamijyada dambe iyo boqolada dambe haddii aad nala joogto mahadsanid su-aasha xigta waxay noqonaysaa haddii 5 bisadood ay 5 jiir ku qabtaan muddo 5 daqiiqo ah haddii 5 bisadood ay 5 jiir ku qabtaan muddo 5 daqiiqo ah imisa daqiiqo ayay ku qaadan kartaa hal bisad inay ku qabato hal jiir imisa daqiiqo ayay ku qaadan kartaa hal bisad inay ku qabato hal jiir jawaabtu waa 1 daqiiqo dadka qaarkood si kale u qaadanayeen laakiin jawaabtu waa 1 daqiiqo waa lagu sheegayaa halkay ku dhex jirtaa hadalka hadirkeeda ayay ku dhex jirtaa su-aasha xigta waxay noqonaysaa waxaad sheegtaa wax haddii aad dhaawacdo aad dhib ku qabto waxaad sheegtaa wax
haddii aad dhaawacdo aan idhaahdee waxaad sheegtaa wax haddii aad dhaawacdo aad dhib ku qabto. Dadka qaarkood waxay lahaayeen waa nafta. Eedna sidaas ma aha. Waa basasha. Waa basasha haddii aad dhaawacdo waxaad ku qabtaa dhib oo indhahay kaa gubaysaa. Badanaa hablaha aad u garanaya dhibaatadii basashu leedahay. Sheekh, su-aasha xigta ayaa ah mid aad u xamaasad badan, isla markaana dadku waxyaabo kale ku tilmaamayeen aan ahayn dhanka ay ka eegayeen, isla markaana ahayd mid aad u qosol badnayd. Su-aashan ayaa sidan dhugmaysay intaan ku dhex jirnay dadweynaha. Sheekh ayaa salaad casar masaajid tukinayay. Marka sheekha haddii uu aayad gafo safkee saxaya. Sheekh ayaa salaad casar masaajid tukinaya. Marka sheekhu haddii uu aayad gafo safkee saxaya. dadka qaarkood waxay lahaayeen safka dambaa saxaya, qaarkood waxay lahaayeen safka horaa saxaya, qaarkood waxay lahaayeen safka dhexaa saxaya, qaarkood waxay lahaayeen sheekha garanaya unbaa sax. Jawaabtu dhankaa ma ahayn, dhanka ula kacaanna ma ahayn. Waxay ahayd jawaabtu salaada casar codka kor looma qaado salaada casar sidaad la ogsoon tihiinba. Su-aashan ku xigta ayaa iyaduna ah mid aad u xamaasad badan, isla markaana dadku dhan kale u qaadanayn, ay kala garan lahaayeen dhan ay u qaadaan. Su-aashan ayaa ahayd ma fayowdahay mise caafimaad qabtaa. Waa laba eray oo runaantii aad isku eg. Horta jawaabta qofku ku yar khalkhalayaa markuu soo istaago markay ku cusub tahay, qof la haysta mooyaane. Waad fayowdahay mise caafimaad qabtaa haddii lagu yidhaahdo dhan aad u qaata ma garanaysa markaad ku yar cusub tahay, laakiin jawaabtu waxa weeyaan waa isku mid labadoodaba oo waana fayoobahay waana caafimaad qabaa. qaarkood baa lahaa waan fayoobahay anugu ma caafimaad qabo. taas intaan kaga gudbo, su-aasha xigta ayaa iyaduna noqonaysa su-aasha u dambeysa. Waxay ahayd su-aalaan habeen daweyd weydiinaya dhalinyarada. Waxay ahayd laba qof saddex qof baa saxaan weli laba qof aan u badanaya inay saxaan. dadka qaarkood garan lahaayeen ingiliishka waa la wada garanayaa. waa imika waxaa iska noqday hadda luqadeena kale iska soo noqday soo xigta. marka tiro ingiliishan dadka weydiinayna bay ahayd 1999 waxaan gees lagu dhahdaa 1999, 1888 waxaan gees lagu dhahdaa 1888, 1777 waxaan gees lagu dhahdaa 1777. su-aasha waxay ahayd haddaba maxaan gees lagu dhahdaa 1111. ingiliish maxaa lagu dhahdaa 1111. tirada waa la iska wada garanayaa laakiin taasi luq bay yar gelaysa. marka su-aashan u dambeysa idinkaan idin deynaya, bal commentiga kusoo qora jawaabta 1111 say tahay baynu eegaynaa, jawaabtaynu eegaynaa, idinkana soo sheega aniguna ma garanayo. aad baan idin salaamaya dhammaantiin. haddii aad nala soo dhamaysto muuqaalka isla markaana aad nala soo gaadhay halkan waad mahadsan tahay. waxaan leeyahay soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaadba. maqaaxidii waa maqaaxideennii caajisina. waxaan inoo soo wada insha allah hadii la yidhahdo barnaamijyo kala duwan, muuqaalo kala duwan. waxaan rajeynaya inaad ka faa'iidaysataan isla markaana aad ka faa'iidi doontaan aniguna aan ka faa'iidi doono. waa habeenka koowaad aynu soo hor fadhiisano insha allah. waxaan rajeynaya inay noqon habeenka ugu dambeysay aynu soo hor fadhiisano. intaan barnaamijka mid lamid ku kulmi doono dhammaantiin waxaan kaga tegayaa nabadgelyo.